shacabku arkay sheekh baa maanta yimi ama wadanka gudihiisa ku nool ama dibadda ka yimaad aad baa loo qadariyaa sheekho marka la yiraahdo qof baa la dooranaya ummadii Soomaaliyeed ama loo dooranayo ra'iisul wasaare ama wasiir ama baarlamaan culimadii kama aragno marka ummadan su'aal maaha ummadan in Allah subhanahu wa ta'ala ay culimadooda doorato oo ra'iiska noo noqdaan oo baarlamaanka noo galaan oo adduunka noo maamulaan الله سبحانه وتعالى نودعه شيخنا الفاضل آدي أدوى كما حدثنا عنه أبو فوسان به إن البرنامج كان قاطي وحنكو سوريتنا إياه شيخ محمود شيخ حسن أبو ضلحة علماء إلهي سيدنا الله إلهي ماشي وحكا قبن كران أو الدين كأنفع كران أو أي دل كأنفع كران أو أي دد كأنفع كران الله تبارك وتعالى hoggaanka noogu dhiibo meesha ay fitan markii ayagu ay qabtaan fitan ka weyn ummadda u soo jiidi karaanna ilaahay tabaaraka wa tacaala ha ka ilaaliyo ama ayagaba ay ku fidnoobi karaan runtii ducada dhabtaa waa ducadaas weeyaan ducada xaqiiqadaana waa ducada weeye waxaad ogtihiin oo maanta aniga masar baan degenin aniga shaxambeli intii hadda qadiyadii mursi waan joognay oo goobjoog baanu u ahayn culimadu way kula taliyeen waxay dhaheen Sheekh Isxaaq al-Huwayni baa kamid ah raggii kolka hore talooyinka siiyay oo yiri xaaladan muslimiintu marayso hadda muslimiintu meesha marayaan waa xaalad adag saadaradeed waa la idinku tajrubeynayaaye waxaa la doonayaa wadadii looga takhalusi lahaa dacwada iyo islaamiyiinta idinku hadda madaxweynenimo iyo isa soo dhigida bulshadii ka dhaxda kaga jira مدارستي جامعاتكي ميلها وزارة عادية قابك إذن كتشوك شوكا لكن قف أنك دينعنا حقا أنك دينعنا حدها الله المريو شانتا سنة سوى صعودنا حدين الله أركا مركا مصلحات إن يدب إسلاميين أي موضوع أي هقامين كران هلا سمايو شيخ لنا عالم أبوها لنا أركتين دير أبوها سيدا درادت أننا لفتنا التجربة وين صومرتي أو محاكمة الإسلام كان صومرتي أو الجزائر بي صومرتي أو هذا الوطن المرسي بي مرتي وحاول هرتا مهمة معها يا مسلمين مهمة معها ولا بيا وحنا قد معها مهمة وين وحاول والولاية كان قارته وحسائدين كريلايا نوسو ددشيو قارته إنو ماشا إمالاي بلشبه فتنة كبضا أي كيمان كرتنا إلهي نوغو مديو ورطورك واقعة هي الدعاء الصحبة قارك علميسا أسميسا هرطوامي داسه حماسة إيو ولاد وحنا نوغو ديويا وح معنا أكو مفقيو بلشب بسل أو مجتمع بسل أو دينهان بسل أو أخلاقهان بسل أو الولاء والبراء بسل مجتمع عاصبة الشريعة الإسلامية تطبيق له هي ضرب حقانا أخلاق إلى كدسان هنت اللي هو جاري كرايه إلى المصيبة كبضا أي كدلتاي لضفدنا هذا المصلحة في النكيريسو أو في الدولة شرطي متكبر الكيريسو لفت هذا لما أقرأ إلهي تبارك وتعالى وعن كبرنا ummadda muslimiinta inuu diintooda ku soo dabaalo akhlaaqooda ku soo dabaalo dalkoodana meel alla meelay joogaanba amni iyo nabadgelyo uu oga dhigo uguna dhiiba gacantana u geliyo Allah tabaaraka wa tacaala cidda uu raalliga oga yahay kitaabkiisana ku hogaaminaysa tabaaraka wa tacaala ilaahay waxaan ka baryaynaa dhulkeeni aan u dhalanay ee ka imaanay inuu nooga ilaaliyo ama nooga qaboojiyo noogana isaajiyo dagaalada ehliga ah oo hadda markaa website-yada aqrido aad arkayso halka maanta intaasaa ka dhacday intaasaa ku dhimatay laba qabiil ba isku duulay waxaasay isku haystaan ilaahay tabaaraka wa tacaala dhiigga ha ka kala joojiyo ilaahay tabaaraka wa tacaala ha nooga qaado guumaysiga iyo dadka maxaa la yidhahdaa intaasoo dowladood baad ogtihiin maanta inay waddankeeni maamulanayaan oo aan laydinka sheekaynaynin waxaasna waa inaga kala tageenna iyo tafaruqeena iyo reer hebel iyo yaa laga dhigayaa ra'iisul wasaare war yaa laga dhigala hal nin baa laga dhigala ra'iisul wasaare hal nin baa madaxweyne laga dhigi lahaa ummad dhan is-aamini karin marka waa in dalkoodina la qaato diintoodina lagu soo duulo la baabi'iyo dadnimadoodi iyo sharaftoodina maxaa la yidhahdaa meel walba ay ku baaba'aano saxaraha libiya iyo badda mataqaanaa casa ee madow in maalinba qolaal mayd ah
in laga mataqaana ay soo tuuraan oo laga ganacsado musiibada intaa dhan dad daris oo aanu dawlado aan daris ahayn oo annagu aanu hogaaminaynay inay maanta maxaa la yidhahdaa wax xilla rabo laga sameeyo haddanana aan la soo jeedin haddanana aan lagu soo baraarugsanayn ciddii war ka daaya dhahdana masaajidada lagu toogto ayagoo wada rukuucsan iyo ayagoo banaanka wada maraya waadna ogtihiin xaalku meeshuu maraya saa daraaddeed ummaddani waxay u baahan tahay waa tawba jamaaciya in si run a loo toobad keeno ummadda waxay u baahan tahay waa diinta kadib wataniya inay noqdaan dad wataniyiina oo dal leh ummaddan waxay u baahan tahay saqaafiya ummad wax garanaysa oo qalin wax ku soo mataqaanaa wax ku garanaysa inay noqoto ayay ummadda u baahan tahay intaa kadib waxay u baahan tahay inay ummadda noqoto ummad jidhnaxaya leh oo dadkeeda ka jidhnaxaya oo dubnaxaya leh oo dadkeeda wada qaxootiga ah iyo kuwa wada gaaloodi raba ummaddani waxay u baahan tahay ummad mustaqbalka dheer waxa loo soo maleegaya garan karta ummaddani waxay u baahan tahay inay ka soo dhexbaxaan ummad garanaysa war dadkani maxay rabaan baddiina waxay rabaan berigiina waxay rabaan hawadiina waxay rabaan inaydan ciidan soomaaliyeed oo maxaa la yidhaahdaa xoog le inaydan mar dambe soomaaliya ka dhalanin haye oo hadduusa ka dhalanin marka maxaa adigu ku faa'iidaa marka waa in lagu qabsado wey saa daraaddeed maanta inta waxyaaba loo soo xarxariiqo yaa la dhihayo dastuurkaa isku haysataan qodobkan dastuurkaa yidhi kana sidan buu yidhi ayagibaa maantoo dhan walaa takunu kaalatii naqadad gazlaha min bacdi quwa islaantii laga sheegay doqonteeda qur-aan ka warramay lacagta lahayde intay shaqaalo soo kaxaysato ii furfura dhahdo ii sameeya xarkaa yay galabtina intay mushaarka uqaysay dhalaa furfura berina halkii bay ka bilaabataa sidaasaan hadda ku soconnaaye ummaddan min jadiid bay u baahan tahay in dhiig cusub lagu shubo ummaddani waxay u baahan tahay in dhiig cusub loo abuuro ummaddani way masakhantaye waxay u baahan tahay in koobiga intii laga saaro originaalka dib loogu soo celiyo ummaddani waxay u baahan tahay maskax cusub waxay u baahan tahay dhiig cusub waxay u baahan tahay akhlaaq cusub waxay u baahan tahay diinteeda in lagu xiro warkani waa war runtii aad muhiim u ah oo doodaha noocan oo kale ah in intii la furo dad cuqalo ah waxgarab ah caafimaad qaba qalbiyan u caafimaad qaba qabiil ahaan ka caafimaad qaba diin ahaan u caafimaad qaboon almaani ahayn dal ahaan u caafimaad qaboo wadani ah dadkaasaa la doonayaa inay xunuusha ummadda ay u tilmaamaan laakiin su-aashu waxay tahay waxa la sheegayaa tilmaami wiil yaroo qori haystaa yidhahdaa kaa adag car samee warku waa intaa alla tabaaraka watacaala waxaan ka baryaa inuu ummaddeena noo hagaajiyo dalkeena noo hagaajiyo diinteena noo hagaajiyo alla waxaan weydiisanaynaa inta dhimatay inuu unaxariisto inta xidhanna xabsiga uu ka soo daayo inta wareersanna ilaahay wareerka uu ka qaado inta walbahaarsanna ilahay walbahaarka uu ka qaado inta walwalsanna ilahay walwalka uu ka qaado inta awlaad rabtana ilaahay awlaad caafimaad qabto oo dal iyo diin u shaqeeya allah tabaaraka watacaala hadduu khayr u yahay inuu ku arsuqo inta baadiyeysan ilahay inuu baadida ka soo hanuuniyo allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaa arina albatila batilan warzuqna ijtinaaba wasali allahuma waslama wbaaraka cala muxamadi wacala alihi waصaxaabati ajmaciin waila liqaءin aakhar wassalaamu calaykum waraxmat allahi tacala wabarakatu